السلام عليكم دمانتي أردي قالوا السلام إن شاء الله وحرة ساكن إن لو ذا لايف تريد and and وحنا كلورها بقى إن شاء الله and حلية السوق فرمو إن تصو أو أركتان إن شاء الله حلية وهبون وسوق لوجو فائدة سكرة قفل بوحة فيها يا كلوك إنه ليه أما وحى لو يقع وقتها وقتها تلافك وأقول شيء waqtigada ugu fiican uu suuq furfurmo horta annaga haddaan nahay dadka Soomaali jooga waa London session-kana hadda waxa ka dhiman 6 daqiiqo ka dhiman oo 2 saac ayuu furmaa dadku dhan u diyaar garoobaan annagu markay noo tahay 5 saac ayaa ayaguna 2 saac noqota marka intaas inaad kala fahantaan ayaa fiican suuqana hadda profit ayuu ku wada socdaa $1 ayaan galaa waayo akhlaaq waxaan rabaa insha Allah inaan muddo bilah in ku dhiso akhlaaqda akoonka loo koriyo ama sida trade-kaaga aad u sameyn lahayd iyo istiraatiijiyada aan dabcan u isticmaasho marka ahaan inaan wadaago waa wax xaqiiqda dhowr mar soo noqotay macluumaadna la wadaag macluumaad live trade barnaamij in aad u danaynaysaa horta suuqa marka hore walaalayaal cidna kama soo horjeedo waa midda koowaad midda labaadna waxay tahay cidna uma aabiyeelay suuqan haddii aad aqoonti lahayn haddii aad xirfad lahayn waa ku khasaaraysaa okay xaqiiqdii suuqan waxaa loo soo diyaar garoobaa ilaa iyo wixii ka 5 saac iyo bar ilaa 6 saac baa loo soo diyaar garoobaa oo ah xilliyada ugu muhiimsan ee dadku kaga soo qayb qaataan fursadaha suuqa ay soo galaan oo kale sida aad u jeedno kan profit ayuu ku socdaa asaguna oo halka ayaan ka soo galnay kanna profit ayuu ku socdaa 2 daqiiqo ayaa dhiman profit ayuu ku socdaa 2 daqiiqo inay labada candle soo socon doonaan ayay aad ila muuqataa oo aan ku soo dhawaan doono haddii dhacdo noqotana in lafalada xoogaa laga celceliyo ay dhacdo ku dhowdahay laakiin no worry hal secret ayaa rabay marka inaan idinla wadaago walaalahay meel kastoo dunida ku joogtaan walaalahay Soomaaliyeed gaar ahaan secret waxa waaye kow annaga ahaan suuqan markaan ka tiragelin ama aan ka macaashino maxay tahay waxyaabaha naga hor istaagi karo maxay noqon kartaa waxyaabaha naga hor istaagi karo kow waxay noqon kartaa aqoon yarida inaad suuqan ka shaqayso waxay noqon kartaa aqoon yarida labo waxa la hor istaagi karo oo kale degdeg waxaa la dhahaa yacni inaan degdegno qaarkiin waxa laga yaabaa inaad dhahdaan no ani aqoon u baahni ani wallahi billahi soo ay libax ina saktabto ay aqoon rubi waxa ma la burna waxa lacag la gelinayso ma lacagta gelinaa bis walaalo waxaas waa lagu soo daa xaqiiqda ina la hadlaya أنا والله أكون أيالي أكون كان أيالي حتى دولة $10 كشوي كل وقت لعجها كويس علام أوكي وحلا أنا مركان قالوا تمن تريد تمن وين ستريك تمن وين النقطان لكن مو في الشباب أوكي لو اللي سواه في الشارع هل سواه مد إني يجي بسينما وواحد وصل تلقى السوق تجربته واحد واعي والله عليال وهرب إن لو داعو واحد من لندن سيشن واحد مسيرة دقيقة clock aadaysan clock marka aadaan waxa ku qoraysaa world clock ayaa aadaysa meesha alamka aad telefoonada kaga xirtaan aada world clock waxa ku soo bixisa saacada local time-kaaga oo Muqdisho ama local time-ka ayaa ku soo baxaya kadib calaamad plus ta ku dhufo qor London marka qorto ku soo bixisa saacada London GMT-da marka halkaas ayaa kala soconaynaa saacadaha waqtigu isbedelo xaqiiqdi marka waxaa la rabaa si aan u samaysano suuqan aan dhaqaalo uga sameyno waxaa la rabaa waxaa la qaraacay waa book plan ayaa la rabaa qorshaha waa inuu ku xirdan yahay waxyaabaha suuqyada aad trade gareynayso kow
أنا كل وسوقيا انترجري سوقيا انترجري كل واحد waxay ii saaran yihiin ba 5 rat ay ii saaran yihiin soo jeedaan okay okay waan win gareynay suuqyada aan tirgelin waxa kamid ah walaalayaal waxa kamid ah aniga waxa kamid ah waxa ii qoran horta time frame ka ayaa soo haray Soomaalidu waliba dhalinta Soomaaliyeed waxyaabo badan ayaa ka qasan time frame kaagu aniga daqiiqad ayaan tirgelaya okay balankii aan la wadaagaya adartan oo qoran kartaan walaalahay waxa ii qoran obey your plans and rules no excuse وأنا حشمية قرشة وايو وحن أوجا قف كستو سوقا كتر جرينايا إنه ليه قرشة إنه ليه قرشة أو إمارة أوكي قيلدان يسوحن كان أدو جدان وحا كأهور استايك الكلية إنا قرشة ليه ولاكي سوقا مركا أنا لاس جريسو أسكنت بجدتو قرشياشا أنو أدان chance فرصتها عن سوق قل أدان وايو نتر جريو حتى أنا هلا فرصتها عن كتر جرين كرنا الحمد لله وانترجري اوكي waxa soo haro qorshayaasha waxa kamid ah horta aniga maxaan isticmaalaa indicator maxay ah waxaan isticmaalaa price action ayaan isticmaalaa sida u jeedaan wax moving average ma isticmaalo wax kale oo mataqaana shaashada iga buuxi ma isticmaalo kaliya waxaan isticmaalaa pure price action ayaan isticmaalaa maxaa kale ii raacsan support iyo resistance ayaa ii raacsan oo isticmaalaa oo suuq kasta waxa rajeeyay suuqana daayo support ayuu yahay markuu jabsado oo bisna uu jabsado aan arka levelkan in volume bias badan yihiin aan arka awood ay ku jabeen marka halkan ku soo laabtaan marka halka in ku soo levelka ayaa ii aalay halkan wali ii yaalay sana ii yaalay halka ii yaalay marka arka volume-ka ayaan intriga halka ka qaatay daqiiqadahana way ii kordhisnaayeen dabcan ووجدنا صفر كادر أيو صفر كادر أيو واون جري أوكي 28 profit أوكي ما حكلا استعمالها trend lines كدي أنا أبغى واحد أدو trend lines يوحي أقول أنا أبغى وليه trend lines ممكن أبغى هنا أكلا trend lines كواس أردد قاروا صوبري أدي لو بعد trend line أدي لو بعد trend line كا إنها تستعمال أوكي دي لو بعد حجنا أكا هلكا إنه كلابته مرات هلكا ولابنايا سوقنا وا أب marka trend line kan sidaas hadaan u baahdo waan u isticmaalaa maxaa kale aan isticmaalaa waxaan isticmaalaa candlestick luqadda suuqa ayaan isticmaalaa casharka wuxuu rabaa candlestick inaan idin soo bayaamiyo candlestick ayaan isticmaalaa xaqiiqdii okay candlestick ayaan isticmaalaa maxaa kale soo haraa maxaa kale isticmaalaa بس انت سيستعملها لعجها انتر جري واحد كمية يورو يو اس دي يجيب بي يو اس دي قف مركو بلو يهاي واستعمالك را يورو يو اس دي كو فلان ان بروفيت الان ادو بروفيت كدو اردت دقالها سوقا انه يريها جيب بي يو اس دي كدغو وبدنا هذا سي سعود 82 بروفيت كسعود اتس فير جود ان واتر جرين كتا labada currency aniga currency badan ayaa tirgelay laakiin qofku markuu bilow yahay wax kula talinayo laba currency inuu bilwadaysto labada kii awood badan inuu trade-kiisa qaato xaaladda suuqa marka soo hartay market condition market suuq ma iska galaa iskama galo ani suuqa sababtoo ah market condition waa muhiim inuu ku qoran yahay suuqa aad trade gareynayso market condition waxa kamid ah waxa raadinayaa suuq volatility leh oo yani wuxuu leeyahay awood sida kan oo kale suuqan oo kale waxa u jeednaa candle awood badan candle awood badan volatility ayaa raadinaynaa halka marka ilaa halka waa xumaa suuqa waa u jeednaa volatility ma leh volatility waxa loo yaqaan ma leh waa u jeednaa candle yar laakiin marka halka laga soo degdegtay saakay suuqu bilowmay ayaa waxa aragnaa dadku inay soo wadeen oo volatility waayo hoostan markuu hoostan jabsaday ayaa anu kor u raacay soo majeed waxa ogaay suuq haduu hoos jabsado down trendka waa dhamaaday anytime ayuu soo laabanaya laakiin for the time being markii la filada qaar
lafala qaar ay beegsanayaan jir sida kan oo kale markay gaaraan way soo laaban karaan anytime ayay soo celinayaan suuq okay laakiin hadda for the time being wuu jabsaday lowgan okay marka sidaas ayaan ab u galay xaaladda suuqa marka market conditionka ko waxaa la rabaa inuu volatility leeyahay aniga I will be focusing high momentumka ayaan ku focus garaynaya marka arko kan dhalo awood badan oo suuqa ama hoos u socdo ama kor ha u socdo momentumkaas ayaan beegsanaya haddii aan momentum u jeedin dee lacagteeda anugu adeer meesha khamaar uma imaan faa'iido inaan kaga shaqaystaa rabaa yoomiyankayga inaan ka dishaa rabaa marka haddii aan khasaaro u imaanayo dhibteeda ayay leedahay okay war maalinta haddaa $5 dilato adeer oo suuqan aad qorshaha wiyaa $5 inaad dilato ka baxdo $5 maanta Soomaaliya halkee laga helaa runta isu sheegna halkee laga helaa bishii waa $150 halkee laga helaa dhalinyarada oo sugnaay halkee laga helaa meel laga helo male muddo 6 bilood haddaad saa ku wato marka akoonka kuu koro bisna aad $30 maalinta shaqayso waa $900 halkee laga helaa kan hay'ad u shaqeeya ma qaato adoo $900 qaadanaa xorriyadaadii ku qaadanaya $900 oo hay'ad aadan u shaqeeyin oo cidna ku ugaarsanin oo mataqaan intee laga helaa adduunka meel laga helo male laakiin akhlaaqda inaad $30 shaqayso halkee ku gaari kartaa tartiibta inaad ka bilowdo moos tartiib oo kaaga gudbo when I find out the situation markaan xaaladda suuqa qiimeeyo waxaan raadinaya h waxa loo yaqaano h waxaa la dhahaa meesha ugu cayiman aad ka gelayso ha ahaado aniga waxaan isticmaalaa reversal ayaa isticmaalaa suuq intuu jabay oo soo noqday Soomaalidu waxay dhahaan break out oo retest soo sameeyay Soomaalidu isku laab iyo bale u yaqaan ma garanayo waxay u baxsadeen marka suuqa meeshii aan cayintay igu soo laabto oo arko candle suuqa celinaya signal ah sida kan oo kale waa bullish engulfing ayaan suuqa sii raacaa daqiiqada daarta kordhiso I don't care as long as profit qaadanayso daqiiqada waa kordhisan kartaa okay daqiiqada 2 daqiiqo 3 daqiiqo dhigo waayo halka daqiiqo candle 3 daqiiqo marka ka dhigto profitka halka ayaa ka qaadanaysa suuqiyo xoog kugu socdo okay marka arka candle suuqa celinaya ayaan h saas ayaa loo yaqaan h waxa la yaqaan meesha ka gali suuqa haddaad suuqan h aad ku lahayn walaalkay lacagtaada iska qasaaran khayr Allah ku siiyo dad masaakiin ayaa u baahan dadkaasi ajir ayaan ka helaysa h waxa loo yaqaan walaalkay tusaale hadda suuqan hadda waxaan arkay breakout inuu dhacay kow retestigii ma sugin waayo waqtiga ayaa kordhistay breakoutka ayaa trade galay HY waa strategy ay ka mid tahay isticmaalo breakout ayaan isticmaalaa momentum ayaan isticmaalaa reversal ayaan isticmaalaa 3 strategy ayaan isticmaalaa waa fursadaha suuqa itusaya waayo hore aad iyo aad ba suuqa ugu qasaar jiray waana ka baqi jiray xaqiiqdii fursadaha suuqa isiinayo waayo plan ma lahayn qorshe ma lahayn runta fiican aslo hadda buugay agyar aan akhrinayo waa madadago gacanteeda waxa ka maysan tahay fursadaha un baraadiya aan ka tagno age marka waa fursadda suuqa ku siinaysa inaad taqaan waa meesha aad ka gelayso waxaa soo haray qorshe igu jiro risk management waa khasaaraha xakameyntiisa qof kasta khasaara ani hadda $10 marka ku bilaabo $10 ayaan ku bilaabay saakin waan sii wadayaa trade-ka insha Allah $10 aan ku bilaabay $10 marka ku bilaabay maxaa la rabaa ani ahaan shirmarka aniga exposure-ka exposure waxa loo yaqaan lacagaha aad furanayso waxaa kamid ah exposure lacagaha furanayso waxaa kamid ah adiga ahaan markaad beginner tahay laba asset kugu filan asset waxa la asset halka marka aado laba lacagood inaad soo furto aniga waxa ii furan saddex lacagood ayaan trade gareynaya haddaan rabo inaan ka takhaluso mid kale waan xirayaa mid kale ayaan kusoo wareejinaya laakiin ka badan may aniga saddex waay 3 asset inaad trade gareeyo okay waayo khatarteeda ayaa ah waayo waa anigu qof suuqa yaqaanaya waa xamiilka laakiin qof markuu suuqa aqoon rabo 3-5 asset inuu isku furo oo ka soo qaad ama 10 asset inaad isku furto oo 10 ka $1 kugu jirto 10 ba deeq saartid ka waran soo lacagtaada saa kuma qasaar risk management khasaaraha inaad xadido position sizing-ka waxaa kamid ah lacagaha aad dhiganayso suuqa gashanayso position aniga waxaan
I will keep my position small relative to the account. أنا هذا $10 markaa haysto $1 oo kale waan dhiganaya $10 ay igu jirto tusaale ayaa aan ku tusaya maanta cashka in $1 waayo $1 haddii xataa aan qasaar ma niyo jawaayo waa sii socod ilaa aan trade-kayga si nadiif ayaan qaad laakiin ka waran anoo $10 igu jira hadaa $5 dhigto muwaalanta adi ka waran walaalka waxyaaba dadka qaar saasa jira $5 dhigana $6 $7 hal mar ay qasaarayaan bise $3 hartay zambisna maaliyum lacag bay suuqan keenaan ma fahansana risk management war ama ogolo ama diid anuu soo arkay qasaaro risk management haddaadan lahayn ama qorshe ganacsi waad qasaarto suuqan iskaga bax walaalka waa ku fashilmayso okay max drawdown waxaa loo yaqaanaa intee xamili kara qasaaro aniga waxaa xamili karaa maanta $10 markay igu jirto $5 markay boodboodo waa u dulqaadanayaa waana ka baxaya suuqa waayo boqolkiiba 50 baa qasaara halkaas markay $10 igu jirto waxaan xamili karaa boqolkiiba 50 inaan qasaaro haddii qasaarada igu bato boqolkiiba 50 aan qasaaro waa iskaga baxaya suuqa ma kusii jiraayo waxba feelingskaaga waxba ha iska dilin emotionkaaga waxba yacni emotion baa emotion baa suuqa psychology emotion ayaa ku soo gelaya argudsiya markaa u dhaqaaqaysaa in $5 kaa maqnayd aad baadi gogto kadibna shantii kale oo miskiinta ahayd meesha iska taale aad bisna qasaaro ka geliso dhalinyaro badan waa jiraan sidaas waa la soo arkay okay aan ka gudbo objectiveska waxyaabaha aan raadinaa wax ka mid ah goolkayga koowaad orto waxa waaye is to protect my capital goolkayga koowaad orto waxaa lacagteeda inaan ilaashto adi peace maad lacagtaada ilaasho laakiin war meeshan laisku soo dhex daayo waa meel idinka aad ismaamulaysaan haddaa maanta u bartay in dugsiga macallin uu ku celin jiray ama macalinka ku jirta guriga ee hooyada iyo waalidinta ku celin halka suuq waa kumanaan qof baa ku jira cid ku cishanaysa mana walaalkii waa adiga computerka iyo kaliya marka waa in aad isku kalsoonaataa aad ismaamul karto adiga ismaamul qorshe samayso wax ku haga samayso wax ku celiye samayso waana trading plan ayaa loo yaqaanaa dhalinta aad rabaa inaan trading plan la qor sida anigu loo qoray iyo istiraatiijiyada insha Allah ila soo xiriir insha Allah okay marka koowaad maxaan dhahay first I have to protect my capital lacagteeda waa inaan ilaashto secondly I have to make money marka labaad waa inaan lacag sameeyo anoo lacagteedii aan ilaashanayo lacag sameeyo macna weyn ayuu ku dhidaa lacagtaada ilaashana lacag sameeyo waa khamaariyaha ma noqonaysa markaas oo kale okay strategy isticmaalaya I have practiced this strategy for the past 6 bilood ayaan strategy-gan isu dubridii aqoontiisa ka dowreeyay waan tijaabiyay waana waxaan boqolkiiba soo tijaabiyay ani ahaan wuu shaqeeyaa dhalinyarada kale hadday u shaqeynaya ayagana maasha Allah waa happy equity kaafkay waxaa rabaa yoomiyan ani ahaan hadda akoonka waxa ku bilownay yoomiyan equity kaafkeena inaan qabano $10 bishii aan ku xisaabtano 300 aan ku xisaabtano okay equity kaafka saas ayaa loo yaqaan katag my strategy isticmaala waxa kamid ah momentum breakout iyo reversalka ayaa aad u weliba iyo momentumka ayaan aad u jeclahay kaga jeclahay breakout badanaa kuma degdego waayo fake breakout ay wax la ayaa jira oo anytime suuqu soo laabto laakiin markaan aad u hubo breakout waxaan ka raacaa retracesiga ayaa ka raacaa dacmalkan markuu jabsado levelkan uu jabsaday uu soo laabto oo kale entry point-iga halka ayaan raacaa okay waa ii suuran yahay habka aan u galaayo hadda markaan rabo inaan suuq reverse aan galo waxaan sugayaa suuqu inuu suuq reverse markaan galaayo oo kale waxaan sugaa tusaale haddana sida iigu suuranta waxaan sugaa hadda suuq saa usoo dedegay markuu soo dedegay aan arko candle culus oo suuqa celinaya sida bullish engulfing oo kale down trend waa suuqa kadib reversal saas ayaan u raacaa sidoo kale suuq u socday haddana soo laabanaya oo kale aan arko soo laabanaya oo kale oo soo laabtay asagana waa soo raacaa waa kan adaaya halkan aan ku galay umaleynaya reversal halkan ayaa ku galay suuqa halkan ayaa ku galay waa kan halkan level ayuu ii tagay reversalka awood buu badan strategy-kan ugu jeclaa waayaan aad ku halkan waa level oo u jeednaa waa level awood badan
okay waa level awood badan oo adaayo xogaa uu laabtay dadku halkaas ayay indhaha ku wada hayeen marka maan ku degdegin markuu halkaa ii gaaray iigar ayaa waxaa ka seelaska inay soo daakhileen seelasku ay soo galeen markii seelasku soo galeen ayaa anigu intriga halkaa ka qaatay waa ujeednaa aad iyo aad buu u saameeyey suuqa momentumkan waxaa loo yaqaanaa markaa aragto momentumka intaasaaba kaga macaashi kartaa hal mataqaanaa hal trade oo aad kulli markasta aad gasho momentum waxa loo yaqaan suuqa socda inaad ka soo horjeeso camal marka aragto kan inuu soo galo kan awoodi badan markuu soo laabto bisna intriga halka qaad soco bisna intriga halka qaad soco bisna intriga halka momentumka raac ilaa level laga gaarayo markii levelka la gaaro istaag ka istaag waayo sida ujeedna halka volume waayo anytime ayay bias kugu soo geli karaan ujeedna soo galaan marka level markii la gaaro istaag laakiin inta level loo dhawaan oo levelka yahay oo levelka ku calaamisan soco momentum raac momentumna kaas ayaa saddex strategy ayaa isticmaala wayna ii suurayeen xaqiiqdii cabsida ayaa soo hartay psychology ahaan how can I deal with the fear sidee cabsi oo aan ula tacaali karaa suuqan hadda sida hore miyaan uu xaqiiqdii waa hore waa baqi jiray fursadaha aan u jeedaan ka baqi jiray ama kuulaab cabsida waxaan hadda ugu trade garaynayno cabsida kow horta waxa waa suuqani inaanan rajayn inaan badinayo rajada waxa la dhaho hope waan qano meel iska dhig okay you don't hope for nothing marka wax hope garanaysa yaa ku balan qaada waxba hadda tusaale ayaan tusaa wax rajaynta hooyada allaha ka dhigo hooyada ama aabaha ka soo aabaha wax ku balan qaada aaba bisha markay dhamaato ya aaba iPhone ba ku gadaya laba mid adii ku balan inaad aaminto inaad dhahdo qadarta inaad dhici karto inaad aamin karto aabaha inuu dhimo karo bisha inta la gaarin aad aaminsan tahay iyo in xaaladuhu si noqon kara aabaha meeshu wax ka rajayna ka weyn karo ama in aabaha maskaxiisa isbedeli karto xaalad kale oo taada ka culus isoo bixi karto inaad aaminto kow taas inaad aaminto iyo mar labaad inaad aaminto si kastaba ha dhacdo inuu aabaha ku gadi karo waxaas bishii aad u dabaaldegayso ilaaho dhame okay wixii aadan ku tashanayn ayaa soo baxay oo ahaa in xaaladdu si noqotay oo xaalad kale aabaha soo food saartay xaqiiqdii markii ay saa dhacdo adigoo aaminay in aabaha taleefon ku gadaayo waxaa dhacaysa inaad dareento qalbi jab hobkiisaas ayaa la dhahaa inaad hob garayso inaad suuqan badinayso khasaaro baan ayay kuu geysan kartaa ani marka sirta aan isticmaalo waxa waaye suuqan waxa ogaha uncertainty inuu yahay bugaag badan oo akhriyay suuqan waxa waa uncertainty waxa kugu soo bixi karo ma ogid aduma maamushid kaliya waxa kugu filan maskaxda dadka inaad akhriso maskaxda dadka aad akhrisana awood badan ayay ku siinaysaa xaqiiqdii laakiin mar walba ma dhaho waa badinaysa ma dhaho halkeen ka badinaya wax dhacayaa la rabaa insha allah inaan sameyno wax aqli gal ayaa la rabaa inaan sameyno ha aaminin inaad badinayso kasoo qaad adoo shilin tuuray hal shii madaxa kusoo bax maba taqaanid no saa kasoo qaad bes saa kasoo qaad kuwa aqoon balada waxay leeyihiin macaan shamaaka kasoo aqoon saas muxuu uga hadlaa waxaan uga hadlayaa suuqa aan ma maamuli karo cadowgayga ma fursad unbu isiyaa halkan waa ii fursadda u raaca halkan waa ii fursadda u raaca laakiin idhageyso muhiimka waxa kusoo baxaya ma oga just saas barta ugu istaag haddaa sidaa aaminto waa guulaysanaysaa haddii xataa aad khasaarto khasaaradaada ma arkaysid waa waxa labada waa rajaynaysa waa filinaysa labadaba filo marka saas ayaa ka wada khasaare iyo faa'iido inay ku imaan karaan filo bes ha keliya guul dhalinyarta guusha u ordaa tan labaad waxa waaye executionka waa laisku dhaafay execution waxaa loo yaqaanaa fursadda markaa aragtaba inaad aad triggerka aad ku dhufato gacanta fursad ma aragta dhacsi tusaale halkan waa roll number anuu ma trade gareeyeen fursadda laakiin marka arko continuation kaas oo kale momentum ayaa u raacaya suuqa waayo waxaan arkaa roll numberka ayaa sabab u ah candlekan daciifka inuu soo laabto uu isku dayo laakiin roll numberka ayaa soo celiyay doji haddaa aragto suuq awood badan kasoo dhex baxa waa continuation continue u raac spin domka haddaa aragto waa continuation just sour candleka hammerka haddaa aragto waa continuation saa u soco execution waxaa la walaal marka ani halkan haddii aan degdegay halka aan ku khasaaray mar labaad waa fursadeedii
roon numberka ayaa ii soo celiyay waa inaan u galo dhalinta badana waxa bahdila waxa waa roon numberka ayaa nafta u keenay ma fahansana badana wuxuu u shaqeeyaa 98% waa 95% aan dhaho waa reversal suuq waa soo celinaya hal daqiiqo way xushmeen marka roon number markuu u dhoweeyaa ka fiirso hasugi markuu kuu jaro gal cabsida waxaad kaga tiragelin kartaa paper trading waxa la ayaa jira ama demo ayaa u taqaanin deemadaada istijaabi fursad kasta oo aragto ku dhufo 20 trade gal inta qasaarta fiiri waxa laga yaabaa 20 trade ba aad waliga ka baqsatay inaad kullu win garayso laakiin cabsi ayaa ka hortaagan waa grills ama qasaar ama warad maxaa gal qasaar ay faa'iido labadaba meesha u timi suuqa chance-ka ay qaado aniga halka chance-ka marka arkay ma baqin waan galay execution saas Allah okay halkan chance ayaa ark waan galay okay sababta u galay ay sheeg momentum waa kan waxa arkaa halkan waxa arkaa momentum halka ayaa kaga soo gaar waa aragnaa Soomaa bias momentum ayaa loo yaqaan awood bias ka ah cabsi waxaan ka qabay roon number ayaa halka ah roon numberka ayaa ka istaagay roon numberka ayaa ka istaagay sababta waxa markaa qaar waxa dhacda inuu soo celiyo hadda oo jeedna rejection inuu soo celiyo roon numberka markuu suuqa ii gaaray roon numberka waan istaagay laakiin markuu candleka ii jaray oo arkay pressure bias ka aan arkay bias kin pressure ayaan blue bias ko pressure sumeeyay ayaan entry halka ka qaad execution ma baqin ma dhihin waa cabsanaysa levelkan halkaas ayuu yahay levelkan waa calaamaysta ilaa marka waxaan dhawaa qiimeystay ilaa levelkan waxa u dhaxeeyo gap ayaa u dhaxeeya halkan dhalo weyn baa u dhaxeeya marka fursad ka faa'iido waan galay anoo maskaxda fadhida ayaan qaad oo jidda waan win garan execution saas la fursadaad marka aragto ka faa'iideyso trade-yada inta qaadanayso marka halkan ayaa la isku dhaafay over trading ayay Soomaalidu sameeyaan qarqad wixii macalinow trade ka la isku dhaaf ani ahaan shir marka akoonkay kala ku trade gareena xaqiiqdii 5 trade oo xamaasadooda wata ayaan trade gareeyaa compound aan ma isticmaalo agta shaqay kullu ma isku dardaro laakiin hal mid trade ka aad qaadanayso inuu ku qorsheysay ma 6 ba 7 ba 8 ba adiga yaqaan laakiin akoonkan waa akoona idinku talagal walaalahay Soomaaliya meel kasta dunida ka joogan inay la socdaan hal bil oo challenge waa 1 month challenge $6 yoomiyan ayaa shaqeynana aan aragno suuqa soo noqdo hadda maxaa haysanaa 2.3 ayaa faa'iido haysanaa $10 ayaa ku jiro 2.35 ayaa faa'iido haysanaa soo waa wadayna hadda trade-ka ayaan qaadanayna lacagaha ayaan fiirinayna inay xoogaa furfurmeen wali labada saac iyo bar waayaba aan aragno lacagahan ayaa xoogaa furfurmay hadda Great British iyo New Zealand iyo Japan iyo New Zealand iyo chip kuwan ayaan kaga macaashaynaa way fiican yihiin sideed faa'iido okay meeqa ayaa dhiman inaan trade qaadano 2.35 saddex trade ayaa qaadan siyaabaha aan ku qaadanayno iyo midqana ayaan fiirinaynaa iyo kalsoonideen insha Allah plankaas inaad ila raacin ayaan filayaa insha Allah ma subax kastana waa inala qaadanaa trade ana walaalkiina idinla jeclaaday idinkana channelka subscribe in la saaro ayaan rabaa insha Allah aad la socotaan casharo badan ayaa soo wada ay ka mid yihiin sida lacagta loola baxo IQ option ay ka mid yihiin waxyaabo marka insha Allah ku soo dhawaana casharka aniga khatar cadeem ma ihi kaliya fursadaha suuqa ayaan ogahay waan ka faa'iideystaa ama aan qasaar ama aan faa'iido ya qasaarada is very common qasaarada IQ option is very common waa lagu badan yahay intee qasaarta intee qasaar ka soo kabsan hadda ilaa yaad okay akstana bisinka lagu bilaabaa bisinka ku bilaabo suuqa waa furfurmay aan aragno marka volatility-ga aan aragno suuqa halkee aadaya halkee u socdaa okay second-ka bedelo haskaga ordo suuqa waxyaabaha kullu waa inuu ku buuxiyo ani 1 minute ayaan tirtay hal 1 minute iga dhig okay daqiiqada ii fiiri
daqiiqadu waa 1 minute waa okay baan trade galayaa okay suuqani halkee yahay halkee ka yimi halkee u socdaa okay majorkiisu waa down ayaan u jeedaa isna minorka waa majorka weli waa down minorka ayaa up ah weli volatility awood badan suuq wuu soo laabtay ayaan arkaynaa candleka waa reversal kan waa selleska ayaa loo jeedaa in suuq soo celiya meesha sababta marka ay ku soo laabteen ayaan eegaynaa iskama gelaysid taas ka suuq waxa laga yaabaa in uu xoogaa sameynaya retest kadibna uu laabanayo okay halka ayaa sabab u ah inuu soo laabto okay halka calaamad noo dhig adigoo raali ah halka waayo waa level uu jabsaday waa level uu jabsaday marka levelka ayuu retesting uu soo laabtay kadib levelka ayaa cili kadib biaska ayaa soo gala waa mujida okay ma degdegayno halka asigu laftigiisu waa levelada iska ilaali ku tooganaya intaad suuq ku degdegin waa inaad si fiican market analyzing si fiican inaad u taqaano okay suuqan waa buy hadda momentumkan buy ayuu socdaa laakiin majorkiisu waa up anytime ayuu soo laaban karaa ama halka labada meel dadku meesha jecel yihiin inay ka fiirsadaan ayuu suuq ku soo laabanaya marka ma gelayna trade-ka ma hada gelayna may wrong number ayaa naga horeeya wrong numberka waa digtoono ayaan ka qabayna waa ninkan raga anytime ayuu soo celiyaa suuqa durabo sales ayuu soo gelinaa marka suuqa hadduu halkaa jaro suuqan qaadasho ma leh jaan wax fursada noogama banaana ayaan filaya waayo wrong number ayaa halka ah pressure bias halka uguma jeedno wax bias oo yani pressure uguma jeedno waxa laga yaabaa daqiiqadaha soo sokeeyba inay xoogaha range uu nasto maadaama cirka xoogaa uu soo galay waayo xoogaha in awood u soo galo ayaan dareeminaa spin kaas soo celi suuqa marka digtoono waa inaan pressure ilaa aan aragno ma trade galayno isla soconaa waa inuu jaro inta kalena inuu ma trade galayo level markuu ii dhow yaa ma trade galayo xasha kullah okay lacagtaada diyaarso $1 ayaa iga go'da sababtoo aniga akoonkayga yar laakiin waa korayaa dhib male waa korayaa waxa igu dhow level waa chance markuu halka kusoo laabto inaan entry fiican helayno laakiin waa dhacdo haddii aan u gallo inuu xoog kusoo laabto hadda waa entry fiican sababtoo halkan waa wrong number kuu jaray markuu kusoo laabto entryga halka waa ka qaadan kartaa laakiin level ayaa kuu dhow dadku mara qaar kaalama tashanaya levelkiiyo xataa u dhow ayay khatar cadiima waay inuu suuq kugu soo laabto dharbaaxa yar lagu dhuftaa ku filan kugu soo kala wareegayso marka ha trade garayn chanceska hadda aan sugayn kaliya wax waaye levelkan waa level xoog weyn soo ma jeedaan waa level xoog weyn levelkan ayaan sugaynaa reversal halkan dhalo reverse ayaan sugaynaa inuu halkaa kasoo baxo kadibna aan suuqa hoos u raacno sababtoo ah majorka kulli waa hoos okay fursadaas ayaan raadinaynaa waayo strategy-geena ayaa ah reverse inaan raadino candle reverse inaan raadino okay spin top waa reverse okay dhib ma leh waxaa rabaa halkan dhal oo wuxuu yahay sell ah oo awood badan levelka isoo jira inaan helo kadib ayaan u gelayaa hoos waa isla socon loo malaynaa haddii kale my continuation ayuu noqon karaa oo suuq waa sii jabsan karaa labada waa la filan karaa marka confirmationku waa qasab inaan halkan dhalo awood badan oo sell ah levelka isoo jira inaan arko halkan waa wrong inaan arko ama candle awood badan haddii kale ma trade gareynaa sababta mararka qaar waxaa dhalinta swing topka inay arkaan bay rabaa inay galaan laakiin waa momentum ma oga continuation ayuu noqon karaa oo suuqu waa sii wadi karaa soo ma jeedaan khasaarada waxyaabaha keena ayaa okay halkaa waa wrong number halkaasaan filayaa inay rabaan indhahooda ku hayaan inay ka soo celiyaan suuqa meelaha kulli waa jiiraan okay pressure ayaa halka u jeedaa waa momentum waaye momentumka waa raaci karnaa dabcan waa raaci karnaa waana candle awood badan maaha candle daciif okay soo socdo muhiim waxaa dadka maskaxdooda inaad akhrin taqaan waxyaabahay maagan yihiin inaad og tahay iska gal maaha wallahi waad khasaaraysaa gacantaada haddaad ka fududahay okay maskaxdooda way isbedeshay dadku waxay rabaan waxay sameeyeen
xoogaa levelka way jiireen wayna soo noqdeen soo ma jeed xoogaa way jiireen wayna soo laabteen okay maskaxda dadku isbedeshay candlekan hanging man inuu noqdo ayaan jeclaa okay sellerska ayaan u jeedaa halkan sellerska ayaa soo galay okay sellerska ayaa soo gal suuqa celinaya ma rabaan yani ma rabno waaye inuu suuqa kor u sii socdo ma rabno isla zonka area waa markasta waa idin sheegaa sellers area iyo buyers area casharka lagu kala ogaana waa idin sheega sooma halkan waa area bis tradekeena ayaa si kalsooni leh hadda u qaadanaynaa round numberka markii laakiin uu jiro waa halkan waa round number halkan waa level halkan waa round numberka markuu jiro okay oo fursadeen ka mid ah waan trade gareynaynaa daqiiqadaha waa noo saxan yihiin daqiiqadaha saxo wax kasta okay ka dhigo ha degdegin ha cabsanin wax laga cabsado meeshan ma yaalin waa fursad un dad meel dad maskaxdooda isbedeshay inaad raacdo halkee markaad wax isleedahay halkeedin ku dhow suuqa ka soo laaban doonaa halkan ayaa noogu dhow inuu suuqa ka soo laabto maadaama up yahay hadda waxaan soo raacinaa lugtii dambe oo suuqa soo celinaysa ayaa soo raacina halkan ayaa la cala hadday dhacdo inuu meel ka soo laabto halkan ayaa kugu dhow inuu ka soo laabto levelkaaga dhigo okay halkan ayaa idin kugu dhow marka halka round numberka waa dhacdo inuu ka laabto oo korkiisa uu sii aado suuqa marlabaad ku laabano haygan aan ka haysan suuq waa up baan haysanaa hadda suuq kor waaye marka waa inaan iska eegnaa kuma degdegi karno waayo saan camal u samaynayaa isna saan camal isna baayigu sii wada horta december maalin hore waxaa idin sheegay suuqu waxyaabaha dadka ay kaga macaashaan sababaha waxaa ka mid ah suuqa wuxuu hore usoo sameeyey ayuu samaynayaa okay tan kale waxa waaye round numberka inaa iska ilaaliyo soomaalida waxa gubay oo khasaariyey oo hoojiyey waa round number hadda round numberka haddaad tirageran lahaa waa loos garan lahaa sababto ah this round number hal daqiiqa xataa suuqa wuu xishmeen laakiin markuu ii jiro kalsooni ayaan ku tirageranaa hadduu hadda ii soo jiro baadhood markuu ku noqonayo chance aan ku helaa wax ka macaan ma leh haa wuu soo jira hadda suma jeed wax ka macaan ma leh waa chancesyada dahabiga ee la helin fursaddan waxaa nooga muuqataa hadda inaan u galno momentum reversalku waana soo dhaafay waa sababta round numberka ayaan ka baqaynay candlekana waa aad iyo aad baan suuqa ugu celiyaa waa hanging man casharada waa kusoo bixiya ayaan umalaynaya suuqa hadda markuu halkaa ku xirmo xoogaa waxa soo gelaya buy kadib ayaan intrigeena hoos u gelaynaa boom sababta awal halkana cabsi ka qabnay soo maha halkana cabsi ka qabnay halkii wuu noo soo jiray soo ma jeedaan waa fursad qaali ah markaan aragno resultiga iyo waxa noo soo baxa ha ka baqina halka waa round number dadku waxay dhaheen macalinow waxaa jira candleka wuuna noqonaya waa dhacdo in buyers ay soo galaan candlada markay aragto buy inuu soo galgalo sababo jiro awgood halkana laga yaabaa in pressure uu ka jiro halkan pressureka ka jiro awgis laakiin lama boqo at the meantime waa badinaysaa suuqan waxbaa ka wululin okay $1 loss okay GBP losska inaan ka baxo mar rabo loss waxaa rabaa uu noogu jirto lacagta maxay currency-ga GBP New Zealand dollar GBP New Zealand loss is very common waa idin sheeg lossku waa qasab okay buyga inuu soo galo maxaa sabab u ah candleka buyga maxaa sabab u ah halka pressurekaas ayaa sabab u ah soma
بريشرka ayaa sababa ha baqin waxba ka warwarin pressureka ayaa sababa idin sheeg pressureka markasta left sideka fi pressureka yarka ayaa sababa inuu candleka ugu soo laabto dib male tradekan waan qaadanaynaa phone numberka ayaa sababa in candleka phone numberkan waa dib meel phone number aad buu ku dhibayaa okay halkan waxaa suuqa waa qasan yahay momentum waa la isku haystaa marna buy mar sell mar buy okay aan aragno ma jecel suuq markuu saa u dhutay volatility ayaa aad u yar halkan bias ayaa jooga daawo u jeedin inuu soo riixaya halkan bias ayaa ku jiro marka waa khatar candlekan midaan suuqan dhacdo waa kasta dhacdo okay waxaan aadaynaa GBP Japan Yen fursadaha suuqa waa inaad eegataa major waa down minor waa up soo laabtay laakiin uu soo laabtay waxaa ma jecli sababtoo ah round number ayaa halkan ku jira suuqa wuxuu gelinayaa consolidation wax loo yaqaano waa round number halkan waa round number marka labada round number consolidation waa sababi karaa in biasku ay soo galaan sellsku ay halka ka soo galaan midaan consolidation fursad halka igama banaana lacagteedana kuma khamaanayo kii hadda fursad aad u macaan iga banaaneed laakiin marna baya igu soo laabtay marna baya igu soo laabtay candleka awoodda badan bala hadda aan aragno fursadda basekiina uu dhow yahay lacag aad u fiican waa profitka 83 tan kale dhalinyarada losska is very common mar walba waa idiin sheegaa lossku waa waxyaabaha sababaha in qofku uu niyad-jabo waxaa ka mid ah losska lacagtaada adigu un ilaali ama lacagteeda $10 ayay ahayd way ilaa shantaha faa'iido inaan sameeyo ayaa second ah saa waa inaa u fahanto $5 inaan geyno waayo okay aan sugo level ayaa halka ah marka in biaskay soo galaan ayaan hadda rabaa waa level awood badan oo u jeednaa waa level awood badan sama jeednaa support ayuu ahaa wuu soo jabay resistance haddana wuu jabay markaan aragto levelkaas reactionka waana round number xaqiiqdii waana round number biaska haddii soo galaan biaska ayaa raacaynaa toos istaag xataa ma jiro sababtana idiin sheego waayo suuqa momentumkiisu waa kor lug yar ayuu samaysanayaa waa sii soconayaa okay kana waa waxa loo yaqaanay retracementiga ama okay Fibonacci-gaan fiirinaynaa okay okay 68 uu joogaa waxaan rabaa candleka inuu halka ii jiro jiraan rabaa 68 oo meelaha uu ka laabto suuqu candleka waxaa inuu halka ii jiro haddii kale ma trade gareynaa waa meeshii ugu dambaysa hadduu jiro suuqa waa isrogay innaha ka filan waa isrogay waa lugtiisa aad u dheer hadduu ka laabto uu xushmeeyana is very good
halkan fursad ayaa ka muuqata laakiin in laga soo horjeesto suuqa waa mamnuuc laakiin volume-kan jira awgiis ayaa fursadaha looga faa'iidaystaa phone number ayaana naga horeeya iska ilaali phone number ayaa halkaa ah halkaa phone numberka hadduu ka laabto suuqa uu celiyo waa okay phone number halkaa suuqa hadduu celiyo qataata waa Apple waaye anytime sida hadda usoo galaan ayay usoo galaan kan fursad nagama banaano fursadda waa shay muhiima continuation fursadda waa shay muhiima in fursad un aan raadino suuqan dadku waxay u moodaan in la iska galo war iskama galo fursad un raadso fursad istiraatijiga ee qorshahaaga raadso dhac ku trade garee halkan waa roll numberkaasi sabab waa inuu candleka soo galo weyn halkan waa continuation halkan sellerska ayaa jooga that means sellerka ayaa soo laabanaya mar labaad okay levelkan waa level ay jebiyeen marka suuqu waa hoos suuqu halkan waa levelka ugu awoodda badnaa marka hoos un baan u trade gareynaynaa hadda roll number ayaa nagu dhow dhib mal halkan dhalo saas camal haddaan helno waa okay rejectionka waa mid yar price-ka ayaa ugu badan rejectionka waa mid yar candlekan waa bullish engulfing aawe halkan ii roll numberka suuqa ku kala wareegi rabaa okay let's see what happens here buyga ayaa waxaa arkaa inuu sellerskiba awood u sheegtay that's fursad qaali waa reversal marka that's why aan kaga faa'iidaysanayno fursaddaas inuu buyga sii socdo sababta ah halkan waxaa ujeedna momentum buy ah leftigan halkan waxaa ujeedna markuu soo gaaro roll numberkaa suuqu ilaa areada inuu xushmeynayo halkaasuu xushmeynaya halkan uu xushmeynaya okay candlekan shalay 10 ayaa kasoo bixinaya marka levelkaas uu xushmeynayaa marka waxaa arkay biaskii oo awood kan ka awood badiyo jiiray level waaye laakiin waxaa arkaa rejectionka xataa reject inuu yahay marka momentum bias waa okay aan socono GBP Japan Yen fursaddiisa aan aragno hadda strategy-gana soo ma jeedid waa strategy fursadda un baan raadinayna annaga fursaddan hadda waxayna siisay inaan buy u galno waa reversal suuqa inuu kala wareegayo okay kuwana soo haray suuqan anytime ayuu soo laabanaya anytime ayuu soo degdegaya waa down fall waaye fursadda isagana aan dhigano fursad halkaa hadduu gaaro anytime soo degdeganaya anytime ayuu soo degdeganaya soo ma jeedaan waayo strong sellers ayaa suuqan waa down okay fursaddaas ayaa raadinayna candle weyn waaye marubuus ayaa loo yaqaan waana reversal candle waa suuq waa bald candle ayaa loo yaqaan candleka bidaarta leh waa suuqu asaaba caddeeba inuu suuqu soo laabanayo dadku markay arkaan candlekan way soo galeen marka waana level aan aragno marka ma trade garayn karnaa meeshaas may sababtoo waa roll number anytime ayuu suuq kugu soo celinaya aniga saas un baa idin baraya wax kale roll numberkaas ka ilaaliya waa cadowgiina koowaad halkaa waxaa ujeednaa inuu soo celiyo suuqa halkaa waxaa ujeednaa inuu bias ka soo celiyey okay waa candle aad iyo aad mataqaanaa khatartiisa u wata marubuusigu laakiin meesha waa level okay halkaa waa no level halkaa noo dhig
halkan waa non level suuqa hadduu dhaafo okay momentumka raacayna momentumka ayaan raacayna acron number haddana level ayaa naga horeeya waa kan levelku waa kana waxyaa idinka inuu tusaa rabaa maanta halka waa levelkaas ayaa khatar cadiim inuu suuqa soo dharbaaxo waan geli karnaa laakiin level ayaa halka ah suuqu soo dharbaaxaya sababta ah aniga iguma jirto strategiga inaan level trade gareeyo kow marka koowaad maxaa iska eegaa left side-ka iska eegaa mana trade waa level awood badan kow labo saddex afar intee taabasho marka khatar cadiim waa dhalinta support iyo resistance soo barteen marka hadda saleska ayaan toos soo raaci karaa si kalsooni ah okay candle awood badan ku xirmo xoogaa ron $1 ayaan gashta halkaa fursad ayaa halkaa ii sheegaysaa waa reversal uma jeedo bull uma jeedo bullish uma jeedo waxaa u jeedaa candle bearish okay laakiin gap ayaa jira sida u jeedaan gap ayaa jira halkaa iyo halkaa candle ayaa u dhexeeya marka saas buyers isku dayaya inay suuqa celiyaan laakiin haddii levelka taabtaan waa la soo celinaa gap ayaa jira levelku umuu dhawo candleka marka gap ayaa jira dib male gap ayaa jira waa continuation ahayn aan ugan waayo gap markasta hadduu gap jiro khatar cadiim u ah laakiin markuu levelka gaaro waa la soo celin karaa anytime laakiin gap ayaa hadda jira sida u jeedo candlekan bull inuu ku xirmo ayaan dhacdaa saa ku khasaarno gap ayaa jira sama jirtaan hadda sales ku toos soo galayaan waayo iska ilaali candleka markuu halkaa marayo oo kale levelka uma dhow laakiin markuu halkaa kasoo baxo oo kale levelka dhexdiisa waa okay marka taas ayaa sababaysa in dib mara laba loss 1 2 3 4 5 minutes ama area waa area oo saleska ah joogaan dhacdo buyers inay hooshooda sii wataan waxa laga qabanaya waana dhacdo in duu halkaa hadda levelka ii soo jiiro duu levelka soo jiiro waa kala wareeg suuqa laakiin duu levelka ka laabto ron numberkaas sabab u ahaa inuu soo laabto calaamadda meesha dhigo ron number okay martingale ayaa markaan sameynaynaa markan waa martingalku hadduu mataqaanaa aad ku kalsoon tahay strategiga waa samaysan kartaa laakiin mar haddii khalkhal uu jiro ha sameynin ayaan kula talinaa dhalinyarada okay sidaan sheegay ayay noqotay ron numberka ayaa sababo inuu soo galo sababtoo levelkan waa level la jebiyey soo laabteen waa laabteen candlekan candle awood badan duu noqdo waan raacaynaa suuqa saan oo kale ayuu rabaa inuu socdo isna saan oo kale inuu socdo soo jeeda suuq wixii lagu soo celinaa isla meesha laga soo laabana marnaba adin ma lagala tashanaa sometimes
suuq meelaha ka soo laabasho leh buu ka soo laabanaya phone numberka aad buu soo celinaya suuq waa dhacdo inuu suuqu sales xoog weyn soo gala waa dhacdo phone numberka sababtiisa jira iyo area oo ay tahay sales area xooga candleka ku jar lahaa halkaas waa dhacdo inuu sii socdo laakiin hadda waxaan jirnaa buyers inay sales inay xoog soo galeen halkan iska ilaali asaguna waa level gabanaya naftigiisu laakiin waa jiirayaan uma joojinayaan waa jiirayaan waa daciif levelka waa jiirayaan uma joojin waayo buyerska ayaa xamaasadaysan gap ayaa u dhaxeeya halkaa buyers halkan ay joogaan gap ayaa u dhaxeeya marka halkan waa round number waaye marka salesku inay soo galaan sida halka ay u soo galeen oo kale ayaa dhacda okay aan aragno resultiga okay martingalkeena waa ku guuleysanay sababtoo ah halkan waxa uu row number inuu yahay row numberka ardayda waan baraa umaynaa idinka youtube-ka hadduu mar resistance u dhaqmo awood ahaan marka labaad waa qasab marka intrayga sababta aan halka u galan waxa waaye halka gap ayaa u jeedaa waayo halka waa level cabsi waan ka qabaa laakiin waa level oo levelku yaraan iyo weynaan marka suuqu waa xushmeynaya sababtoo ah waxa u jeedaa awood full human bias sales marka levelku uma dhowa marka candleka waxa u jeedaa sida adaayo oo kale maaha rejection kan mid weyn maaha waa mid yar candleka ayaa awood badan marka gap ayaa u dhaxeeya halkan dhal ilaa iyo halka uu gaari karaa marka saas ayaan u galay marka biaska sababo jira ogeed halkan iyo halkan volume-kooda ayuu candleka u soo galaya waa run daqiiqadaha ugu dambeeya bias way soo geli karaan marka qaar waa lose garayn kartaa laakiin adaminta marka qaar daqiiqadaha ugu dambeeya adiga ayaa win garaynaya okay waxaan haysanaa laba loss iyo 1 2 3 4 5 win okay waxaa dhiman $3 ayaa nooga dhiman guusheena inaan gaarno GBP USD halkan hadda ayuu degdegtay somajeed momentumkan waa fursad asagana laakiin somajeeda maxaa dhahay halka gap ayaa u dhaxeeya candleka ayuu gap ayaa u dhaxeeya laba candle ayaa u dhaxeeya levelka kadib ayay go'aan ka qaatay inay soo rogaan gapka marka iska ilaaliya ilaa hadda maraqan anu waa ku khaldamaa gap waxaas dhahaa uu laabanayaa bisna continuation ayuu u noqdaa oo suuqa ayuu sii wadaa marka halbeeg ha laga dhigto isla meesha markuu gaar suuqa in laga trade isla meesha markuu gaar in markii la arko inuu suuqu soo laaban in la soo raaco okay 10 idin ahaato marka levelkan awiisayo hadda soo laabto suuqu waxaan rabaa lacag kale inaan soo furo suuqa hadda xoogaa furfurmayaa suuqa hadda xoogaa furfurmayaa CHF iyo waxaan aadaynaa iyo waa strong downtrend lacag fiicanna waaye waa strong downtrend xaqiiqdii $1 ii geli sababtoo lacagta hadda shaqeeyay iyo ma khasaarin karo martingalku waa markii aad dhahdo jugjug meeshaad dhaafin aad ismoodayso in
aad meela ka fiirsatay ayaad gelinaysa hadda waxaan filanaba horta aan soo fogeyn hadda waxaan filanaba suuqa waa laabasho keliya inaan filno hoosna usii galno haba filan momentum raac sababtoo ah suuqa suu socdo waa soo raqiisaya mideedu waa soo raqiis marka meel level raad uu suuqa soo laabanayo sida round numberka oo kale candle suuqa cilinaya signal ilaa halka inuu socdo oo kale calaamayso okay baashu markay macaanta markay halka oo kale waa ka soo raaci kartaa halka oo kale waa ka soo raaci halka oo kale laakiin markuu okay candle ka mid awood badan ayuu ila muuqdaa wax rejection uma jeedo oo rejection oo diidma marka buy ayaan u raacinaa ilaa levelka ilaa round numberka okay inuu socdo waa dhac suuqu uu kala wareego xoogaha waa candle no bullish engulfing waa fursadaheena waa fursad fiican ayaa halkan uga jeedaa okay degdeg ayaa la rabaa degdeg waayo waa momentum xoog buu marar qaar halka ayay marar qaar kugu tuuraya yaa marar qaar anaa arkay intaad halka ama meelaha adoo doon u gala ayuu meelaha inta kugu tuuro uu isna waxa dhacda in uu halkaas markuu saa usoo laabanayo dad ayaa gelaya dadka gala ayaa ku caawinaya adeer in suuqu uu kor u sii socdo ha baqin markuu soo laabto hadhihin Allah horeeyo hadhihin ha soo laabto fursad dadkii hore dhaafay oo inta kan lacagti ku jira ay qaadanayaan profitka markuu xoogaa soo laabto igal waa signal waa moqt soo kulligood buy u soo galayaan moqt buy marka u soo galaan suuqu uu sii sikanaya uu soconaya suuqa okay waa fursad qaali ah tan oo kale waa fursadeen okay $2 ayaa dhiman $2 ayaa dhiman yoomiinkan $2 ayaa ka dhiman waxay u jeednaa inaan ka wadno suuqa maanta fursado macaan ayuu siinaya iyo profit fiican marka aan aragno marnaba aniga haday aaminaysiin marnaba yeesan dhicin lacagtaada amaanta dhan u rafaalaysi $3 ama $5 ina hal mar aad geliso meel runta ku sheegaya marnaba ya dhicin ka soo daalay runta idin sheegaya inta $20 $30 shaqay hal mar gelinaay kasaaro gelin waxaadan hubin inaad doonayso inaad khasaarayso gelin lacagtaada fursadda ka fiirso suuqa fursadda ku siinayo waa ka fursad buu ku siinayaa fursadda markuu ku siiyo gal laakiin marnaba ya dhicin runta idin sheegaya marnaba ya dhicin in ay baasha dhacdo okay waxa soo hara okay fursad ku gaadnaa fursad galaan rabnaa GBP CH hadda helnay GBP Japan Yen Euro GBP Euro GBP fursad cadiima ayaa halkaas socota momentum ayaa socda ilaa levelka soconaya suuqu marka jihadiisa aan eegno double top ayuu ku soo rogtay dib male ilaa halka waa level xoog weyn uu soo soconaya marka calaamadeen noo dhig momentum inaan soo raacin ayaa laga yaabaa fursad ama momentum aan helno halka waa awood levelka ugu awood badan momentumkan ayaan soo raacaynaa gaab ayaa u dhaxeeya ilaa laba candle rejection waxa sababaya waa halkaas pressurada halka ayaa sababaya marka ha ka baqin kan hadda wuxuu soo baxay sababta halka ayaa jirta volume awood badan marka noo raaci halkeena dollar noo geli momentumka waa dhacdo in uu socdo daqiiqado uu halkaas socdo laakiin laabasho ayaan u jeednaa pressureka halkaas sababo jira oogad pressureka halkaas ayaa keenaya inuu candleka laabto maxaa kale iyo levelkan yar sorry level ayaa halkaas ah ma jeedin ma filaneen marka dib male hal qof ayaa kugu filan oo kaasoo horjeesta oo yacni meeshaad adigu u socoto mooy meel kale gelinayo oo fikradoodan waxa waaye halkaas ay fiirsanayeen anina halkaa ayaa fiirsanaya isku fikrad marka ma ahayn dib male halkaa iskama ilaalin qoorta halkan iskama neckline ayaa loo yaqaanaa waayo halkaa markuu
qoorta wax dhahay qoorta uu jabsanaya laakiin dib male suuqu markuu wuxuu rabaa inuu suuqan maxaa khaldan suuqani jihada koruu haysta haye wuxuu rabaa inuu hoos u laabto okay igu soo celi euro GBP euro GBP okay هاي راع واي marka wuxuu rabaa inuu halka ka laabto laakiin rejection ayaa arkaa pressure halkaas ugu jira iyo halka okay candle-kan laba mid ayaa ka rabaa inuu noqdo horta halkan waa round number-ka kow inuu jiro inuu round number-ka ay jiro kadib aan buy u raaco martinkan ayaa sameynaa ay soo laabasho ma leeyahay may geli fursad ayuu siiyey sababta uu soo laabanaya idin sheego marka halkaas pressure ayaa jira ha ka baqin pressure ayaa halkaa jira okay pressure-ka ayaa wuxuu sababayaa in uu suuqu soo laabto okay iyo pressure-ka halkaas oo adaayo uu sameeyey sababta uu marka ha ka baqin fursadda aad iyo aad buu noogu dadaalay candle-ku wuu noo soo laabtay waana round number waa meelaha laga galo meelaha ugu fiican waa marka halkayna dollar aan qasaarnay faa'iido 0.6 ayaan sameeynaa halkaas martinkan ayaan sameeyay sababo jiro marka momentumka inaan raacno ayaan isku dayaynaa insha Allah momentumku waa bias momentum halka levelkaas ayay halbeeg ka dhigteen oo isu dayeen inuu mataqaanaa daqiiqad ugu dambeysay ayuu nagu soo laabtay aan aragno marka waa profit asaguna okay halkaas ayaan u jeednaa in uu ka xushmeeyo levelka marka ma fiirinayn xaqiiqdii waxaan fiirinayay ma garanaysaa halka hoose ayaan eegnay marka level way idin dilayaan marka hore suuq si fiican waa analyze garaa okay kulli waxa u jeedaan waa wax live aan ku trade gareyno iyo price action ma mucjisaan isticmaalaya dhalinyarada raadinaysa waxa la hadlaa raadinaysaa inay isticmaalaan mucjisooyinka isticmaalaan inay raadiyaan candle maxaa la dhahay signal qof inuu signal ku siiyo xaqiiqda halkan signal iyo wallahi ma shaqeynaya aqoonta inaad barato kalsooni aad suuqa adigoo wax indicator aad kaga trade garayso maalintii yoominkaaga ka qabsato wax kaaga sharaf fiican ma jirto walaalkay okay hal fursad ayaa noo hartay kan double top ayuu sameeyay kadib neckline-kana wuu jabiyey halka level ayuu ahaa wuu jabiyey muxuu rabaa marka inuu sameeyo aan aragno wuxuu rabaa inuu sameeyo saamiri wuu laabtay saas u soo dadegay marka levelka halkaas suuqan hadda meel cayman ma haysto xaqiiqda ah meel cayman ma haysto laakiin kor ayuu rabaa inuu markastuu isku dayo halkaas ayaa laga soo celiyey waa meeshii ugu darneeday soo dadegay marka uu ku fashilmay mar labaad wuxuu isku dayayaa inuu meeshiisa aado marka sidee fursad anu halkee ka haysanaa fursad ma haysanaa xaqiiqda ma haysano sababtoo ah halkani waa level 2 waana dhacdo inuu suuqu sii laabto waana dhacdo inuu soo laabto waa laba meelood laba qarbi ku jira marka adiga laba qarb dhexdooda inaad dhex gasho no khatar cadiima waa ma hubtid candle-ka waxa sabab u noqon kara kow aan kuu sheego waxa sabab u noqon kara inuu soo baxo round number-ka ayaa sabab u noqon kara haye inuu laabto waxa sabab u noqon kara levelkan ayaa sabab tuse level ayaa halka levelkan ayaa sabab u noqon kara inuu laabto level haye maxaa sabab u noqon kara inuu laabto sabab waxa u noqon kara candle-ka awoodda uu xambaarsan ayaa sabab u noqon kara inuu socdo marka dadku way ka wada istaageen sida anigu ugu istaagay dadku ugu wada istaagay suuqa taftanka badan ee dheen candle ma socdo ilaa qof awood badan oo lacag fiican hayo oo hamar uu gashto uu suuqa wado oo dhahayo in keena
dad baqdeen oo kale dadku laakiin way ka wada istaagayaan dadka annaga camal oo lacagahooda la baqaaya waayo waa meel khatar ayuu ku sugan yahay hadda oo kale ma jirta continuation inuu tusayo suuq inuu sii soconayo markaa oo kale si kalsooni ayaad ku gelaysaa oo momentumka ayaa raaci kartaa marka sidaas unbaa idin sheegaya waxaadan hubin waa ka istaagaysaa yacni badinaysaa ma khasaaraysaa wax kuu ah waa marka waa level wax u dhowaan ma tirgalayna marka halkaa fursad iguma banaan iga xir anytime ayuu igu soo laabanayaa halkaa fursad iguma banaana maxaa rabaa inaan trade gareeyo GBP OD meesha hadda iga xir fursad iguma banaan soo ma jeedaan wuu soo laabtay 5 second-ka waaye handleka suuqyada inta kala suuqyada xirxiran kulli anaa idin sheegaya suuqyada xilliyada furmaan anaa idin sheegaya insha allah xilliyo fiican ayay furmaan oo inta dhaqaalaha fiican favourite-ka gashta maanta laga macaasha qaar baa suuqyadu xiran oo xaqiiqdu waxaani wallaahi intaad faa'iidayso khasaaro waa jiraan waad khasaari kartaa bin aadan ayaa tahay waxaasaa mudday laakiin at the meantime khasaaradaadii faa'iidadaada ayaa badnaanaysa adiga waxba ha u joojin dhalinyarada khasaarada ka cabanaysa waxaa laga yaabaa in ayagu khasaarada isku geysanayaan kadibna ay aaminsan yihiin in suuqa ayagu cadow ku yahay suuqa cadow aniguma waa jeclahay suuqan wuxuu isiiyey keli waa fursaddaa ii gal waa u galaa fursadda ha ii gelin uma galo just that halka fursad iima galaan suuqan waa xun yahay fursad iima galaan keliya adiga inaad go'aansato kii fursadda ku ah kii aad ka macaashayso inaad go'aansato oo kale just GBP CHF waa Swiss franc toddobaatan iyo sagaal aan arko suuq fiican inuu yahay yaabo 5 second-ka iyo kandhalada iyo habeeso degdeg ma jiro habi iska dhig lacagtaada ilaasho cid kaa xoogaysa iyo cid kaa qaadan karta ma jirto kolka suuqan waxaan u jeednaa momentum soo laabasho levelkaas ayuu ka soo laabtay wuu soo socdaa xoogaha round numberkan ayaa khalkhal geliyay suuqa consolidation xoogaha u diray marka waxaa rajeyna waa candleka ama inuu socdo ama inuu soo jiro ayay u badantay waayo volumeka ayaa waxa uga jeednaa awood halkaa marku soo gaaro marka round numberku khalkhal ayuu geliyey halkaa suuq socdo waa marka round number trade gareyn marka kule waa saan oo kale suuqa hadda waa momentum awood badan marka aad trade-ka galaysid oo kale wuu kugu soo laabanayaa intrigaaga xun hadhowd waxaa eedeynaysaa platformka ama IQ option waa khamaar candle soo laabanayo waa suuq halkaa ka rid waayo baa dhehaysaa waxa adoo aqoon round numberka in iska ilaaliyo dhib soo maa marka round numberka markuu ii jiro oo kale momentumka waa raacaya ilaa iyo halkay u socdaan ilaa iyo halkaa inay fiirsanayaan la qaadiinta waayo halkaa pressure awood badan ayaa jira marka dadku meeshay wada fiirsanayaan adigu fiirso walaalkay ama walaashay halkaa waa level awood badan marka fake out-ka wuu laabto bisna marka level ha trade gareynin sababtoo ah anytime ayuu kugu soo laabanaya suuqu markuu level kan waa level markaa trade gareynin iska ilaali volatility suuqan horta waa down inaan hoos u sii raacno waaye laakiin level ayuu hadda taagan yahay levelka daqiiqado inuu xushmeeyo sida saan oo kale marka adiga khamaryaha noqon ku kaadi kubadda fiirso meesha aad la aad rejection ayaa hadda u jeednaa fursadeedi maaha fursadahan waa level ayuu igu soo aaday levelkaas ayuu igu soo aaday levelkan dhacdo ina kan xushmeeya major support waa ugu dambeeya
kuwa minerska u jiray ilaa halka waa sent ma ogtahay aadin ilaa halka waa sent ilaa halka aamini marka way jirayaan dadku inay hoos u sii wadaan waayo wixii kaga macaashayaan sel fursad halkan nooma banaana macalinkiina waa suuqa saas mataqaanaayo uga digtoon idinka maxaa tihiin idinkii halkee joogtiin macalin Soomaaliga hadduu suuqa saa u analyze garaynayo fursad ka raadinayo idinka bilaa fursadda iska socda maxaa tihiin halkee wax ka soo barateen ii sheega macalin Soomaaliga saa fursad u raadinaya u gaadgaadaya idinkii yab anaga aragna khamaaryahanaa noqoteen khamaaryahanno waa ogahay waxa akoonka idinkugu talagala waxa waaye dhalinta khamaaryahanada noqday suuqani hal mid ayaan kuu sheegayaa haddii khasaaradaada badato waa nacaysaa qof walbana waa nacsiinaysaa qof walba oo alla keeno waa nacsiinaysaa yaa qof walba oo alla keeno waa nacsiinaysaa wallaahi ka digtoono marka khamaaryahan ha noqonin si nadiifa dadka ula soco fursad fiican ayaan raadinaynaa fideogu nagu dheeraaday halkan fursad uguma jeedo isagana fursad uguma jeedo waa round number ayaa ku dhow isna support ayaa ku dhow laba qarqar dhexdooda ku jira khamaaryahanni iyo anugu ma galaayo iga tag dheh waa soo arkaa khamaaryahanimo waa soo arkay laba fursad uma jeedo inaa shaqeyno waa goolkan maanta waa $5 inaa qaban $5 aan rabaa fursad fiican 79 kama fiirinaa 0.3 yaa haysanaa hataa haddii 0.8 aan helno waaye kan 78 Canadian iyo Japan waa suuqan aad buu u xun yahay fursad idiin banaana waxaa u moodeen dadku inay fursad la'aan galaan suuqan hey idinka war ogolaa suuqa fursad baa laga raadiyaa fursad alfursatul qaaliya waxa ugu dhex wareersantiin waxaa fursadda meela u doonataan waa iska dhex gashaan markaasaa lagu feesteeyaa 76ka waa Canadian CHF lacagaha Canadian-kana waa jecel xaqiiqadan trade gareeyaa laakiin dad population-ka ayaa aad ugu yar dabcan okay don't fall waa suuqan hoos ayuu soo degayaa minerkiisa ayaa hadda halkaas ka laabtay okay waa dhacdo halkan waa level inuu ii xishmeeyo suuqu aan u soo raaco hoos aan u soo raaco sababtoo ah muu sii socon karo waana round number xaqiiqo round numberkana suuqa wuu kala wareejiyaa round number marka aragno
say suuqana uu noqdo haddii reversal aan aragno fursadeena ayaan kaga faa'iidaysanayna okay waxaan u jeednaa waa sellerska waa raaceynaa $1 noo geli fursad fiican waaye okay nigeli very good okay resultiga ayaan sugaynaa marka waqtigu noo saxan yahay reversal ahaan ayaa u tagagareynaynaa suuqu majorkiisana sababtaan u galnaa idin sheego ilaa sabab baa loo galaya majorkiisa dhan ayaa up down ah marka fursadda dadka ugu wada raadinayaan kul waa sell marka suuqina wuxuu noo joogaa meesha ugu fiicneed oo dhowr jeer laga soo celceliyey oo ujeednaa halkan waa laga soo celiyey isna isku dayeen waa laga soo celiyey xoog mar labaad meeshii buu tagay meeshiina dad badan ayaa indhaha ku haya fursadda aan u galnay dad badan oo isugu jira dee annaga oo kale mataqaanaa companiyo isku jira baa fursadda meesha indhaha ku haya marka suuqu waa up waa down marka haddii fiirisid waxa waaye down ayuu aadaya hoos ayuu socdaa marka fursadda reversalka ayaan inu raadinaynaa waxaa ujeednaa in suuqu soo noqday waxaa ujeedna meeshina wuu joogaa levelkii buu joogaa meel yani meel dheer levelkii buu taagan ujeednaa levelkii waa daay laga soo celiyey buu taagay marka majorkiisna waa down candlekanna waa waxa waaye bearish waaye bullish maaha candle bearish waa ujeeda inay sellsku soo galaan oo dhaheen haye nawada suuqu waa sii wadeenaa calaa kulli xaal $15 maanta waa gaarsiinay $5 faa'iido waa shaqeynay waa xoogaa waa jireen saddexaan qasaarnaa jecel lahay laakiin hadda minta meeqa trade ayaan galnay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayaan galnay 10 trade ayaan galnay 3 loss ayaan ugu dhacay meeqaa win garanay وجدًا weliya faa'iidada qaba annaga marka sidaas inaad fahantaan waa suuqani kaliya maaha kow waa plankaaga raac waxa maanta dhan aan sababaha u galno marka idin soo sheego kana kasoo bilaabaya kow kan waxa u galay lacagta kan waxa u galay continuation oo ah in buyers ku soconayaan haye kana soo haray kan waxa u galay continuation inuu buyers ku soconayaan ilaa levelka laga gaarayo continuation gap ayaa u dhaxaysa sababta adaayib si lamid ah waa ku qasaarnay kan halkan soo joogo oo gap u dhaxay ayaa waxa aragnay bearish candle ah kadib ayaan hoos u galay oo marka continuation ayuu noqday haye kan ayaa soo haray waxa ku reversal ayaa ku soo raacnay level ayuu noo tagay suuqu soo laabtay kadib waa soo raacnay sooma okay kan waa loss sababta ku qasaarnay haddii aan iska ilaalino sababta ku qasaarnay wax waaye round number ayaa nagu soo celiyey suuq socda ayaa rabnay inaan galno laakiin round number ayaa nagu soo celiyey marka waa ku qasaarnay 10 ayaa noo tahay dhib ma leh kama xumi xaqiiqada round numberku waa iska ilaalin marka laakiin wuu ku gambanayaa mid waxa jiro saas hadaa dhahdo aad korkor kaas oo kale ayaa ku gambanaya marka aduu ma arki kartid laakiin marka ku dhaweys ma arkaysid wuu kaa dhuumanaya kan kale ayaa arkaysaa marka iska soo foge sidaas kaga hubi marka kaa ayaa daaya iga baday kan ayaa soo haray kan waxaa ku galnay reversal ayaa ku galnay round number oo suuqa celina ayaa waxaa aragnay bullish engulfing kadib buy ayaan u raacnay waan galnay okay kan waa loss isagana gap ayaa u dhaxeeya sababtoo ah waxaan isdhahay levelkii oo la gaarin levelku waa kan waxaasi levelkii oo la gaarin ayuu soo laabanaya suuqa maadaama aragtay bearish candle bearish ayaa aragtay isdhahay oo sababtoo waa bearish candle ka suuq wicina laakiin gap ayaa u dhaxeeya laba candle ayaa u dhaxeeya meesha suuqa soo laabanaya ama levelkiiba laba candle ayaa ka dhiman marka continuation dadku way sii wadaan ilaa levelkaas indhaha lagu wada hayaa anile meel cidla qorshayaal dib male 10 ayay tahay hadda kadib idinkana iska ilaalinaysaa annagana iska ilaalinayna okay waxa soo haray kan ayaa soo haray martingale ayaa ku galnay waxa aragnay suuqani in levelka laga soo celiyay ayaan aragnay haddana in bearish ku soo galeen ayaan aragnay kadib markuu round numberka gaaray wuu soo laabtay intrigeena hoos ayuu noo ahaa oo suuqu inuu laabanayo ayaan u jeednaa okay waxa soo haray kan ayaa soo haray asagana isla fursadii ayaan aragnay round number candle bullish engulfing ayaan aragnay suuq ayaan sii raacnay waxa aragnay bullishka awood wax rejection ma lahayn marka continuation ayaan u sii raacnay suuq
berg baa ku yingire kan ayaa soo haray isagana waa reversalkii oo kale suuqu fursaddu wuxuu siiyey soo laabashaa kadib waa sii raacnay waa wingareen soo ma jeedaan walaa suuqani markaa idin kaga waramo wuxuuna siinaya keliya maxaa waaye fursad ayuuna siinaya kan qalbigiisu iyo maskaxdiisu dhisneen oo suuqa ka baqaaya fursadda dhan ma arkaayo halkan waa fursad halkan waa fursad okay aynu wada tuso halkan waa fursad aynu wada tuso halkan waa fursad okay halkan waa fursad soo ma jeedaan waxaan kulli waa fursad waxa markaa ujeedaan ujeeda waa fursad halkan waa fursad marka suuqa keliya adiga analyze garay waa fursad soo ma jeedaan waa fursad fursadahaas marka haddaan garanayn walaalkay ama walaashii waa dhib inaad fahanto waa cabsi ayaa kuu jirto waan ku dareemayaa waa khasaartay suuq waxaa ka aamintay cadowgaayo koowaad waxaa aamintay aqoon inuu u baahan yahay suuqani waa aniga waxa igu dhacay waxa waaye waan khasaare hadda meantime ma ogin suuqan in khasaare iyo faa'iido loo imaanayo waxa keliya usoo xaadiri jiray inaan suuqa dhagaha ka qaraaco maxaa dhagaha ka qaraaca ma wa fahansin qashka marka waan khasaari jiray markaan khasaaro waxa dhihi jiray maxaa kaa dhima aqoonta kaa dhima aqoon baa raadiyay wax badan baa soo bartay kaandhalada suuqa marka anoo soo hub qaataa bisna suuq imi xaqiiqatan ugu dhacda waxa waaye suuq markaa imi inaa bisna khasaaray aqoonta anoo leh urniyo halkee lagaa haystaan iyo halkee lagaa haystaa okay waaba baxay buugaag badan akhriyay suuqa bisna waan waxaan dareemay psychology ahaan inaan u dhisnayn kow in trading plan aan lahayn qorshe aan lahayn labo fursadaha suuqa sidaan u galaa inay ii qorneen saddex waxyaabaha kulli markaas ku arkay iyo risk management inaan khasaaro lacagteeda aan khasaariyo ayaan fahmay aniga inaa ay cadowga koowaad isku dhex jirina ani aan fahmay oo yacni nin plan ku socdo miyi qorshe ku socdo nin miyihi yacni ku socdo akhlaaq ku socdo nin miyihi yacni cabsidii baa wixii iga gashay maadaama aan suuqa wax badan ku khasaaray in mar kasta fursaddii aan arko inaan ka baqaayo waxaa dhici jirta suuqa in fursadda soo siina aan boqo adhow markuu iga taga aan shalay maxaa u geli waayay alaqaad bad marka suuqii meeshii uu ka soo laabinayo markuu gaaro anigu ma jeedo ma og tahay miir ma lihi baan gelayaa atahay bisaa soo socda bisna waa khasaaraya bisna waa nixi jiray waayo halkan waa level ma og tahay waa level awood badan marka levelka ma fiirinayo waxba ma fiirinayo waxaas dhahayaa wuu soco marka halkaas ayaa keeni jirta inaan khasaaro kow marka walaalayaal fursadaha suuqa inaan ka faa'iidaysano dad qaar hadda waxay leeyihin macaash market maxaa waaye $5 iyo wuxuu trade gareynayo akoonka horta idinka adeegsano akoon labaad ayaan leeyahay oo screenka igu samaysan yahay ayaan leeyahay akoonkan waxa idinkugu talagalay dhalinta walaalahay oo Soomaaliyeed oo niyad jabsan inaan ku tuso akhlaaqda suuqan muddo bil ah inaan idinkula trade gareeyo akoonkan laftigiisa maalinta aan qabanayno $5 insha Allah idinka ogaana marka akoonka gaarsiino 150 bisna maalinta inaan qabano $10 marka 300 marka akoon gaarsiino 500 inaan maalinta qabanayno $15 marka 15 aan gaarsiino $700 bishii inaan bisna qabanayno inaan qaban doono idinka arkaa muddo 5 bilooda waxaan waa profession adoo khibrad leh garan kartaa hadaa saa ku socoto akhlaaqda ku socoto leem waxa ma u baahanaysa hadda waxaan idinku dhigayaa sababaha idin sheegay inaad bartaan inaad ila fahantaan ma garanaysaa marka 6 bilood ama sanad saa ku socoto akhlaaqdaada inaad noqonayso inaad libaxsan ka taabto lacag waaweyn baad tirgareynaysaa markaas fursadihi ayaa la socotaa suuqa dhac waxba kulama noqon indhaha la qabsanaa laakiin hadda ikow adoo beginner walaalo naftaa runta u sheeg murugada waxa igu soo waxaan marka qaar dhalinyarada ugu murugoodo waxa waaye hawo been iska dhaadhicinahay meelaan wax ka jirin bay ka raadinayaan hawada beenta iska saar kow hawada beenta iska saar inaa maalinta qaban karto $200 meel iska dhig kaas inaa maalinta 500 qaban anigu kuma dhahay weligaa ma qabanayso waa qabanaysaa ka badan baa qabanaysaa 20,000 30,000 baa maalin qaban kartaa laakiin waa goorma dhaqaalahaaga markaad kobciso waxaan waa ganacsi oo kale haddaba iskaga tag haddaadan khasaaraha aad xamili karin haddaba iskaga tag haddaadan samir lahayn oo suuqan profession ahaan aad ugu trade gareynin oo aad u dulqaadanin aniga hadda mujida akhlaaqdeeda suuqa waan ka baxaya berile isagoo 15 ku jira ayaa soo gelaysaan waa la soconaynaa bisna live trade kan waa idin bilowday sababtaa waxaan dhahay subscribe haddii 400 miya ay dhahdeen laakiin kun baa idin dhahay gaarsiiya jir live trade marka subscribe hala saar dhalinta aad bay subscribe u saaraan channelka insha Allah casharada waa la soconaysiin trade-ka waa la soconaysiin
akhlaaqda suuqa idinka in tusaa fursadda suuqan IQ option dhalinyaro badan way dacaayadaysaa dad waxaa jira intay khasaareen cararay suuqan hadda meelaha dacaayadda taagan xaqiiqdii waa khamaar bay dhahayaan suuqan kugu soo laalaabanaya dhahayaan suuqan muxuu kugu soo laaban waaya haddaadan level iska ilaalinayn haddaadan roll number iska ilaalinayn haddaadan aqoonti lahayn muxuu kugu soo laalaaban waaya ayaa khalad kale suuqa khalad male suuqa ha eedeen suuqa fursadda ayuu siiyaa aniga ma eedeenayo suuq hadaa khasaar anaa khalad kale suuqa fursadda unba anuu ka faa'iidaysanaya just fursadda arday waa jirtaa subaxleeya insha allah oo ayagana mentorship oo mentorshipnimo anuu u qaadanayo insha allah subaxdii way dhigtaan yacni waa la hagaa tradeka ayuu qaadanaya la hagaa meelaha khaladka jira fursadaha suuqa ayaa tusaa sababahay ku galaya ayaa tusaa laakiin intay cashara ayaa ka horeeya cashara ayaa siiya kadib ayaan life trading marka qofka daneynaya asagana mentorshipnimo inaan mentor u noqdo oo suuqana xaqiiqda mentor ayay u baahan tahay qofku inuu ku hago marka garabkaa waa buuxsama markaa hesho qof ku hagaya aad iyo aad ayaan suuqan uga liibaanaysa xaqiiqda marka walaalay Soomaali inta dareynaysa in la hago oo mataqaanaa la tuso suuqan hababka marka waa in aan insha allah isla soo socono khasaaro waan galnay laakiin maxaa khasaaro faa'iidadaada ka badan okay saa waa inaan u fahanno walaalahay waa idin jeclahay tradekan maanta saas aan noo qaadanay weliba profit fiican ma ahayn maanta suuqu profit fiican noo bixineen saas ayaan laakiin waan fiicneen 0.8 ka iyo 1.6 ka iyo profit fiican iyo 0.83 ka iyo 0.82 ka marka waa okay hal dollar waa risk garan karaa inaan helo 0.8 ama 0.9 ama marka $1 ayuu noqdaa boqolkiiba marka waa idin jeclahay dhammaantiin channelkan hala subscribe garay insha allah khayr badan ayaan rajeyna suuqan ma ku laabanaya xataa haddii hadda aan halkaa fursad u arko waa fursada halkaa u arko in bearshin galfin uu suuq soo galay suuquna uu down yahay aniga waxba igama gelin ka qabsaday iimaan daro ma fiicno balse wax beel leedahay ma gelaayay waa fursad ilaabtu entry dhac waa fursad cadiima continuation usii gal ilaa laga gaarayo levelka sii soco waa fursad waa awoodaa 15 doon inaan fursadda kaga tag laakiin may akhlaaqda in tusaya nisbaan akhlaaqda in tusaya marka insha allah waa idin salaamay dhammaantiin halii baashaalo suuqan waa fursad kow trade planka dhalinyarada trade planka la rabtana insha allah inaan la qoro way ila soo hadli karaan waa u suuraya buuggayga siduu ugu sugan waa u diraya saas u faa marka macno ma keenayso buuggi ay ag yaalaane waa kan subaxdii inkas trade kasta aan galaayo waan akhriyaa waan dul maraa hal waxaan ku sheegay walaalka mawaasha haddaadan guushaada qorsheynin guuldaradaada ayaa qorsheysa guuldaro ayaa qorsheysataba guushaada qorshe bishii intaa rabto inaad samayso sanadka intaa ku xisaabtanto maalintii intaa ku xisaabtanayso intaad khasaare aad xamili karto qorshe haddaa maxay dhaha aniga boqolkiiba 50 haddaa khasaaro hadda boqolkiiba 50 anaa hadda faa'iido ku socda laakiin khasaare intee xamili karaa boqolkiiba 50 haddii $10 ay $5 iga soo harleed waa ka bixi lahaa maalintaas bis maalinta intaas khasaare xamili kara waa ka bixi lahaa waa ka baxaya video ayaan u imaanayaa fursaddeeda bisna faa'iidaysanaya dib waxa laga yaabaa inuu suuqu ii fiicnaado saas ayaa la rabaa insha allah السلام عليكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته channel subscribe على سارسي يعني ماليوم ينهو سوقليو يعني trade online يعني 10 آيات جرا أسرنا عن سوق الله يهتا كان 10 كلا آيات جرا أسرنا وفي هاي كان الاستجابة وحيابا أنو سوقا أن profitable أن كنا قلنا قالها وصلنا كان لا يكمل كان لا نسوق للشباب بالله التوفيق والسلام عليكم.